magaalada muqdisho oo caasimad u ah Soomaaliya waxay 22 sano ee la soo dhaafay ku jirta dagaal la sokeeyo iyadoo ay soo gaareen burbur baaxad leh oo markaasi gaaray goobihii taariikhiga u ahaa Muqdisho iyo sidoo kale dhismooyinkii sida gaarka ah loo lahaa magaalada Muqdisho xilligaani waxaa si weyn looga dareemayaa dhismaha goobaha dadka sida gaarka u leeyihiin iyo goobihii taariikhiga ah oo hore ay u saameeyeen dagaaladii sokeeye ka dhacay Soomaaliya waxaana inta badan wadooyinka iyo sidoo kale degmooyinka gobolka Banaadir laga dareemayaa dhismooyinka iyo waliba goobaha ganacsi ayaa sidoo kale qayb ka noqday soo celinta bilicda magaalada Muqdisho iyadoo wadooyinka qaar ee magaalada Muqdisho si weyn looga dareemayo carwooyinka iyo sidoo kale goobaha ganacsi ee sida gaarka loo leeyahay oo markaasi ganacsatadu ay maalgashi ku sameynayaan wadada Maka al-Mukarrama ayaa qayb ka ah meelaha sida weyn looga dareemayo isbedelka magaalada Muqdisho gaar ahaan ganacsiga yar ee halkaasi maalmihii ugu dambeeyay ka soo ifayay customerskeena inta badan waxay ku nool yihiin dibadda inta dalka ku nool qaar kale oo tiro badan waxay ku nool yihiin dibadda waxa jira wiil telefoon laga soo waca MMS emailada laga soo xiriira oo soo dalbada waxyaabo ay qaataan sida shoppingada shaararka kabooyinka oo aan u dirin dibadaha jira badanaa waxaan aragnaa Soomaalida markay dibadaha aadayaan meeshii xaq ka adeegan lahayn ayagoo inta ka adeegta kadibna hore u qaato waxooda Muqdisho ayaa sidoo kale waxaa si weyn looga dareemayay dhismaha iskuulada iyo sidoo kale jaamacadaha sida gaarka loo leeyahay oo markaasi arday fara badan xilligan ay ka qalin jabinayaan mucaasir dabcan markaan sameeynay waxyaalo badan aan ka fakarnay waxyaalahaas badan idinka waa garan kartaan oo dad aqoon-yahan oo isku imaaday waxyaalaha isweydiin karaan ama ka fakari karaan waa garan kartaan laakiin annaka waxa noogu muhiimsanaay waxa aan ka shaqeynay ama ka fakarnay wax annakana mas'uuliyadda aan sheeganayna ka turjumayo ummadana macna u sameyn kara hay'adaha shisheeye ee soo gaaray Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ayaa qayb weyn ka ciyaaray soo celinta bilicda magaalada Muqdisho waxaana hay'adaha ka socda dawladda Turkiga ee xilligan Soomaaliya ku sugan ay hirgeliyeen in sidoo kale Muqdisho laga furo goobo waxbarasho iyo sidoo kale goobo caafimaad oo markaasi lagu daweeyo dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwada danta yar isbitaalada waaweyn ayaa dawladda Turkiga waxay ka hirgelisay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Hodan oo ay ku yaalaan isbitaallo iyo sidoo kale goobo waxbarasho oo dawladda Turkiga ay maalgelin ku sameysay Professor Ibrahim Muuse Heero waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada Soomaaliyeed 22 sano ee la soo dhaafana waxa uu ku sugnaa gudaha Soomaaliya xilligaani waxa uu ka hadlayaa qaabka isbedelka ka jira magaalada Muqdisho iyo sida loo sii ama qaadi karo waqtigii bariisamaadkii waxay ahayd magaalooyinka qaaradda Afrika magaalada ugu qurux badan ay kaga jirtay kaalinta koowaad burburkiina waxa weeyaan muxuu ahaa dhibaato aad iyo aad u fara badan ayaa magaaladu maartay muxuu gaartay dadkii deganaa magaaladii way ka qaxeen dhismayaalkii way burbureen wadooyinkii way burbureen xaaladdu waxay noqotay mid aad iyo aad u dhib badan oo aad iyo aad u adag oo qofka xataa maartay gurigiisa markuu ka soo baxayo oo san maartay kalsooni ku qaban inuu hadoo gurigiisa ka baxo oo san mar kale ku soo laaban karin marka muxuu ahaa duruufahaasi oo dhan ayay soo martay nasiib wanaag maanta Muqdisho waxay tahay meesha ugu wanaagsan bay hadda martay muxuu ahaa ay mari haysaa bilicdeedii magaaladii way soo noqonaysaa 80% muxuu ahaa shacbigii markii hore magaalada ka qaxay dhinac kasta email kastaba ha u qaxaan way ku soo laabteen hadda magaalo aad iyo aad u camiran oo ganacsigii kala socdo oo waxbarashadii ay maartay muxuu ahaa ka socoto jaamacado fara badan ayaa magaaladu maartay ay leedahay macaadiyo kale oo aad iyo aad u fara badan ay leedahay marka noloshii waxay ku soo noqotay caadi ay ku soo noqotay qof kasto Muqdisho yimaadana wuxuu maanta kalsooni ku qabaa inuu nabad ku seexanayo nabadna ku soo toosay dadkeen dheendaya siyaasadda Soomaaliya ayaa ku tilmaamay isbedelka xilligan laga dareemayo magaalada Muqdisho in sabab weyn u tahay ka bixitaankii al-shabaab ee magaalada Muqdisho iyo hanashada dawladda cusub ee federaalka Soomaaliya oo sidoo kale fursado ka abuurtay magaalada Muqdisho marka loo eego soo celinta dhismaha magaalada Muqdisho iyo sidoo kale maalgashiga goobaha taariikhiga ah ee ku yaala magaalada Muqdisho